الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، waxaa farxad weyn inoo ah maanta oo aynu ku jirno dabayaaqadii bishii barakaysnayd ee Ramadaan in aanu halkan ku shaacinayno fayskii labaad ee aanu ku xoolaynayno dadkii dhibaabadu ka soo gaadheen ama xoolahoodii iyo hantidoodii ay ku gubatay suuqa waaheen dafcaddii labaad, taasoo tiradoodu dhan tahay 1,016 qof oo sidii halkan laga sheegay lacagta loo qaybin doono ama loo sii dayn doonaana ay tahay $6,766,418 lacagtaas oo runtii aan ahayn dadka 1,016 qof ah lacagtii ka gubatay ma aha, umana dhowa waxa weeyaan waa fayskii koowaad baanu lacag ahaan usii daynaynaa. waa jiraan dadkii aadka usii jiracsanaa lacagtoodu 5,000 ay ka yaray in aanu lacagtoodii xooggeedii aanu siinay, qaybina ay noo harsan tahay. iyagana waxaanu sii dayn doonaa qoladaas maalinta sabtida ayaanu intii harsanayd aanu soo dayn doonaa lacagtooda. laakiin maanta lacagta aanu halkan ka bixinayno waa dadkii hantidoodu ay ka badnayd 5,001 ay ka badnayd ayaanu doonaynaa inaanu insha allahu tacaala wax yar oo ka mid ah lacagtoodii aanu ka siinay. taa macnaheedu ma aha inaanu lacagtoodii wada siinay iyo inaanu u dhowaanay toonna, laakiin waxa weeyaan hadba waxa soo urura, wixii inoo soo urura ee inoo yimaada ayaanu qayb sii daynaynaa. marka waa dufcaddii koowaad qaybteedii koowaad, dufcaddii labaad baan ujeedaa qaybteedii koowaad ayaa la odhan karaa. marka sidaa waa in loo fahmaayo, qofkii lacag u soo dhacda yuu u qaadanin in lacagtiisii la wada siiyey iyo in kala badh la siiyey toonna yuu u qaadanin, ee lacagtiisii baa wax ka mid ah laga siiyey oo loo soo hormariyey iyadoo hadba la eegaayo lacagta inoo soo ururaysa. waayo lacagta iminka innaga inoo soo ururaysa ama inoo soo ururtayba waa inagii hore u shaacinay oo shalay waa inagii shaacinay arrinkaas, wixiina soo galay, waxa inaga baxay, waxa inoo yaalla. lacagta ina soo gashayna dee waad ogtihiinoo dee tiraba 3 qaybood baan inagu u qaybinay. qayb waxaan ugu talagalnay inaynu dadka ku xoolayno, qaybna inaynu wax ku dhisanno, qaybna waa running cost-kii wixii kharashaad inaga baxaya sida suuqyadii iminka temporary-ga ahaa ee aynu samaysanay oo kale aan ugu talagalnay dadka inaan ku rarno ayaanu gelinay. marka saa waa in loo fahmaa oo lacagta hal meel inaan la wada gelinay. hadda wixii inoo soo galo qorshay ku baxayaan, qorshay guddidu dejisay oo rayshiya iyo maaragtay leh boqolley leh ayay ku bixi doontaa biidn illaahi tacaala. waxaan jeclahay halkan inaan fariin uga gudbiyo shacabka reer Somaliland guud ahaan, gaar ahaanna dadkii ku tabaaloobay suuqa waaheen ee ka ganacsan jiray. suuqii waynu dhisanaynaa biidn illaahi tacaala, oo keliya ku mashquuli mayno inaanu dadka lacag keliya u celino, laakiin suuqii dib baynu u dhisanaynaa. marka koowaadna ilaahay baynu ku tiirsannahay subxaanahu wa tacaala, isagaana qani ah, khasnadihiisu buuxaan, tan aynu haysanana ina siiyey, mid kalena aynu ka filaynaa. innagoo waxba haysan oo nin walba barlaawo yahay ayaynu waddanka soo gallay
maantana dad iyo dunyaba waynu buuxnaa dowladnimadii baa inoo dhisan systemkii baa inoo adag taa horta waa inaad marka hore aad ku niyad sabaataan marka xiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo ku tiirsan oo waxaa gacantiisa ku jirta ku hagar baxayna waxaa intaa kadib inaguna waynu isku tiirsanaynaa oo waxaa la rabaa suuqa haddaynu nahay reer Somaliland inaynu inagu dhisano ciddii inaga caawinaysa waa meesheeda laakiin sugi mayno oo odhan mayno ilaa nala soo caawiyo waxa weeye waxba dhisan kari mayno madaxweynaha qaranku aad iyo aad ugu nuxnuxsaday in aynu inagu isku tashano oo aynu wax qabsano dhiciskuna inta birta loo soo sido ayuu bakhtiyaa marka taana waa inaad iyadana maskaxda ku haysaan haddii alla ka dhigo go'aamo arrintaa ku saabsanna xagga dhismaha iyo farsamada aynu u dhisanayno iyo waxaynu ka yeelana suuqeenna iyo mustaqbalkiisa dhowaan baanu insha allahu tacaala dhegihiina maqashiin doonaa fadhigan fadhiyada ku xiga baanu ka sheegi doonaa waxaynu kaloo aanu shaacinaynaa qof kasta oo diiwaan gashan gacantayadu way gaadhaysaa qofna yuu odhani waa layga tegey oo waxba iima soo dhicinin waxaa laga yaabaa imika inaanu qaybtan oon maanta sii daynayno qayb baa jirta ka hoosaysa oo aanan weli wax siinin oo dib mar dambe laga qoray maadaama liiska furnaa dib laga qoray maalintii hore liiska intii inoo qoraydee 5 kun ka hoosaysay dhammaan lacagteeda waanu sii daynay haddana dee ila waa liisku uu furnaayo xafiiskii guddida diiwaangelintu waagii baryaba ciddii ay caddaatay in ay yihiin dadkii suuqa ku ganacsan jiray haddana kaga burburtay way qorayeen intii ay ka daba keeneen weli umaanaan sii daynin lacagtii waxaanu noo sii dayn doonaa insha allahu tacaala iyadoo aanu wadi doonno iyagana oo aanu siinay fursad iyagana u siinay inay hay-aduhu majaalkaa inagala qayb galaan maalinta sabtida haddii alla ka dhigo ayaanu sii dayn doonaa biidni illahi tacaala waxaan filayaa waan badiyey waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland